waxaa si wada jir ah laydinkugu eedeynayaa dembiga ah dil kas ah kadib markii idinkoo ku hubaysan AK47 aad rasaas ku furteen marxuumiinta kale ah 1 Maxamed Saleebaan Abiikar Maxaadey oo ahaa taliyihii ururka Gorgor xooga dalka Soomaaliyeed 2 Ismaaciil Maxamuud Maxamed oo ka tirsanaa ururka Gorgor xooga dalka Soomaaliyeed mar kale halkan waxa ka bilaabatay maxkamadeenta ee loo haysto 4 kamid ah ilaalada hotelka Maa'ida ee Kisnaasaha hablood 2 sida Xasan Shuuto Cusmaan Juula Gaabow Ibraahim Salaad Xayla Macallin iyo Mukhtaar Cabdullaahi Muuse dhammaantood waxaa loo haystaa dil ay si wada jir ah ugu geysteen gaashaanle xooga dalka Maxamed Saleebaan Abuukar Maxaadey oo ahaa taliyihii Gorgor iyo dable xooga dalka Ismaaciil Maxamuud Maxamed oo ahaa mid ka mid ah ilaalada taliyaha dilkaasi oo ka dhacay bur control uu hotelka lahaa 18 Oktoobar 2019 mid kasta oo eedeysanayaasha ka mid ah waxaa fursad loo siiyay inuu ka jawaab celiyo eeday ay soo diyaariyeen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida hoggaanka baarista booliiska oo isku howlay cadeynta cidda geysatay dilka taliyihii Gorgor iyo ilaalihiisa ayaa waxa uga wakiil ahaa kiiskan madaxa shaybaarka cilmiyeysan ee booliiska forensic 2 xidigla Axmed Iimaan Maxamed waxa uu u sharaxay dhinacyada dacwadda sida ay isku waafajiyeen gumaca iyo fooqyadii ay ka heleen goobta mashaqadu ka dhacday iyo hubka ay isticmaalayeen eedeysanayaasha maxkamadda hortaagan halkaan aan ku soo ridnay labada gumac kanna waa kii Ismaaciil laga soo saaray oo dhiig leh oo afkiisa leh kanna waa kii aan tijaabinay oo biyaha ku ridnay si aan barbardhig isku sameeyno marka labada gumac way is yeesheen waxa kale oo jirta rasaas fara badan oo aan ka qaadnay meesha ka soo qaadnay oo 11 rasaas tanna waa mid aan tijaabinay Muumin Xuseen Cabdullaahi ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda u sheegay in eedeysanaha koowaad iyo labaad ay isku dayeen inay marin habaabiyaan hanaanka cadaaladda taasi oo muddo intaan la eg sababtay soo jiitanka kiiskan xasan shuute marka hore wuxuu isku difaacay shanqarada goobta uu si joogin gadaada uu ku yimid hor uu sameeyay mataqaana caddayn uu bixiyay intaas markii dhacday xafiiska halaalin wuxuu ku taliyay in xasan shuute qorigiisii la helo si aan si weelka ugu helo dib loo noqday waxaa la soo helay qoriga xasan shuute qorigiisii iyo gumiciya la isku qaaday waxaa soo baxday oo natiijada forensiga ay soo saartay in gumacaas laga helo goobta uu ka dhacay qoriga xasan shuute General Cabdullaahi Buule Kami xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda weydiistay in la mariyo ciqaab u dhiganta 4 eedeysane maadaama ay si aan ka fiirsasho lahayn u dileen taliyihii qaybta ka ahaa ka xoreynta maleeshiyada Al-Shabaab tuulooyinka buundada ku yaala ee Shabeellada Hoose markhaatiyaalkii aan hor keenay waxay dhageysatay cadaymihii qiraaladii ay sameeyeen iyo cadaymihii kale ee evidence-ga ahaa waxay aragtay qoryihii iyo rasaastii iyo maxaa la jiray sheeg forensigii warbixintiisii dhammaan intaas markii la isku daro waxay cadeynayaan in eedeysanayaasha maxkamadda hor fadhiya ay mas'uul ka ahaayeen dilkii labada marxuum ee sarkaalkii iyo askarigii ilaaladiisa ahaa oo si bareer ah oo gardarro ah loogu dilay wadada dhexdeeda sarkaalku wuxuu ahaa geesi qaranka u halgamayay wuxuu ahaa taliye urur Gorgor ciidanka commandoska ah maalinta ayuu ka soo galay furinta kadib markii uu cadawga meel badan ka xoreeyay waa nasiib darro in isaga oo dalkiisa u halgamaya lagu dilo si iskeersa si fudud sidaa darteed maxkamadda sharafka leh waxaan weydiisanaynaa in ciqaabta u qalanta eedeysanayaasha oo ah aayaadka quraanka iyo qodobada aan ku soo eedayn in ay ku xukunto eedeysanayaasha oo lagu toogto si mujtamaca intiisa kale ay ugu tusaale qaataan maxkamaddu waa mahadsantahay sidoo kale halkan waxaa joogay abukaate Isxaaq Cabdullaahi Xasan oo wakiil ka ahaa ehelka dhibanayaasha xaq gaar ah jira oo quseeya qofka dhibka gaarka ah loo geystay ee hadda sida tusaalaha ah Maxaadey Saleebaan aabihiisa oo kala gaashaan laha ehelkii marxuumka dhibaato gaar ah gaartay dhibaato guudna qaranka gaartay dhibaatadii qaranka waxa uu hadlaya xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida dhibaatada gaarka ana waxa ka hadlaya qofka gaarka ah ee ay soo wakiisheen dadka gaarka ah oo dhibka u gaaray marka sida aan u taaganahay waa sidaas
waxaana ka hadlaya qodobka 158 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxa aan dalbanaynaa mar haddii la cadeeyay si waafaqsan qodobka 163 inuu dembi dhacay dembigan eedeysanayaashaas ay galeen xuquuqda uu qaranka ku leeyahay xuquuq aan ahayn oo gaar ah waxay ku leeyihiin dadka annaga aan matalayno sidaa darteed waxaan codsanaynaa in xukunka maxkamadda la raaciyo xuquuqda gaarka ah oo ay leeyihiin dadka aan qaranka u ahay ee ehelada labada dhinac qareennada u doodaya eedeysanayaasha ayaa ku dooday inay xaq u leeyihiin qaadashada hubka iyo isticmaalkiisa sharciyadna ay u haystaan ilaalada hoteelka sababta ay waxaan u sameeyeen oo ay leeyihiin dadkan dambiga waa galeen xafiiska xeelaalintu sooma aysan gudbin mana gudbin karaan sababtoo ah dadkan waa muwaadiniin Soomaaliyeed ee shaqo haya Soomaaliyeed shaqo qaran haya halka xafiis ujeedadooduna ma ahayn inay wax dilaan sababtan taas oo tabayna waa cadeey waxay tahay afartan muwaadin oo la soo eedeeyay korneelka wax dagaali kama dhaxayn iyo marxuumka kale Ismaaciil labada muwaadin ma aysan shaqo iskuma lahayn wax ka dhaxeeyay habeeraatay ma jiraan meeshan uma joogin isaga inay dilaan waxaana u fasaxay iyaga hubka ay haystaan waxa u fasaxay mataqaana qodobkan 33 oo dhahay lama ciqaabayo haday gudanayo waxay gudanayeen waajibaad ay gudanayeen anigu ma lihi dad hadilaan mas'uuliyadooda waa la raadinaya laakiin xeer ilaalintu ma ayna cadeynin mana dhihi karaan bareer ku dileen waayo waxay ka dhigeen qof waxay ku hubaysnaayeen sida u macneena waxay ku hubaysnaayeen qofka wuxuu ku hubaysnaayeen marka la dhawaco hubaan loo ogolayn oo sharci darro ah oo intaan soo qaatay si bareer ah adiga kugu dilay taas waa mideeda iyagu waxay cadeeyeen oo kaliya in uu dhacay dembi marqaatidii halkan yimidna qof sheegay oo dhahay eedeysanayaashaas dilay ama qofkaas qoray ka soo baxay fadhiga maxkamadda oo fursad ku filan la wada siiyay dhinacyada maxkamadda ayaa waxaa soo xiray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare xasan cali nuur shuute dhageysiga garmaqalka la xiriira afarta eedeysane maanta halkaas uu ku egyahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saaraysa billahi tawfiiq Abdulqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho